اوكي sidee u aragtaa Itoobiyaanka iyo Maxamed Dheere shaqooyinka ay xamar ka hayaan waxaan u arkaa inay aad u qaldan tahay arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka soo horjeedaan ay tahay marka Uruguay waa warisiis marka xaqiiqdu waxay tahay in Uruguay waa niga waddanka lagu soo horseedo niga Uruguay waa masaakiinta baabiyo mid xaqamaha Itoobiya joogto Uruguay galbeed su'aashan ku weydiinaa waxa weeyaan ma laga yaabaa Soomaaliya inay fiicnaato sida hadda ay ku socotana fiicnaan ma ku imaanaysaa السلام عليكم والله يا با Soomaaliya inay fiicnaato hadii ummadda Soomaaliyeed israacaan oo ay cadawooda iska celiyaan wada hadda sida ay ku socoto uma maleynaya in Soomaaliya fiicnaanayso sababtoo ah way kala qaybsan tahay Soomaalida qaarna waxay la jiraan cadawga qaarna waxay dantooda iyo dhibaatadooda tahay ma naqaano aan walba waxaan soo noqdaynaa dagaal iyo shacbiga oo qaynay marka waxay la tahay in ummadda Soomaaliyeed hadday israacaan ay wada qabsi si fiican wax u wada qabsan karaan laakiin hadda dawlad baa ka jirta dawladda hadday doonaysa in ay waddanka maamusho waa inay la tashataa la heshiisaa dadka ka soo horjeeda oo la dagaalamaya haddii aysan la heshiin ama aysan waxba la wada hadlin uma maleynayo inay Soomaaliya ay adise kula tahay aniga waxay wala quman tahay ummadda Soomaaliyeed inay meel ka soo wada jeesato cadawga waddanka haystana ay meel uga soo wada jeestaan iskala daayaan waxyaabaha daciifnimada qabiilka iyo kala aarsiga waxaan markasta inta qofka joognaan maqlaynaa in maalin kasta bama qarxay dad la laayay dad masaakiin oo la qaxinayo kala aargoosasho iyo wax aan meesha loo joogin adduunka oo horumaray ma fiicna ummadda waddankeeda intay ka carato waddamo kale qaxaysa 24 saac in la maqlo dadka Soomaaliyeed waxaan maqalnaa inay badaa ku leedaan inay diyaaradaha ku leedaan waddamada dariskooda inay dadka masaakiinta qaxaya ay laayaan ilaa iyo South Africa waxaa laga sheegaa dad Soomaaliyeed oo baabaaya waxaa anigu wax dawlad qolooyinka isku sheegana waxaa looga baahan yahay sida kuwa ayaguna sheegan inay mucaarad yihiin oo waddanka difaaca ayaguna wax difaaca ma muujinayaan waxaa looga baahan yahay inay Soomaalidu heshiiso ay meel uga soo wada jeesato cadawga ugu weynaa waddanka ayaa waxa waddanka ku haya dhibaatada Soomaaliya haysatan Itoobiya kaliya ma aha waa gaalada diinta lagala dagaalamaya dadka masaakiinta ciyaalka waa la leenayaa dumarka la leenayaa dadka eedriska waa la leenayaa waxaa fiicnaan lahayd Soomaalida inay intay wax garato ay isu tagtaayeen qabiilka iyo qurunka iyo adeerka iyo waxa qashinka iyo kuwa mashiinada lacagaa la wareegay daabacay 24 saac dadka dhacaya waxaas oo waxa cadawga waddanka ku yihiin waxa loo baahan meel looga soo wareejiyo waxba gaarsiin mayso hadda adeerka wadaado gardheer inta qabataa maalin kasta aad soo siisid $100 aad ku qayshid waxaad ka helaysaa malaha waxaan anigu inta igala sii fiican in ummadda Soomaaliyeed ay israacdo nimanka qolooyinka wadaadadana ayaguna businesskooda ay wataan waxa ay sameynayaan wax xaq ma wax diinta ku jirana ma laftirkooda waxa loo baahan yahay in kuwa khaldan iska qabtaan masaakiinta dhexdooda masaakiinta inta bombooyin ku xiran dadka masaakiinta qolooyinka yaryar ka dhashay inay intay balbac ugu ridaan yiraahdaan markay Itoobiyaanka dhex maraan ay ku dhex qarxiyaan waa laga fiicay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh